بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد أنا سلطان عبد الوهاب خليف معلن سلطان صابر كان من اللغنك كومده يكون المانت مقدشو سياسيينتي iyo jananadii hadlay iyo ragii kale dhaqankay ka dambeeyay un baan raacsanahay qodob waxaan leeyahay daraawishta qodobna waxaan leeyahay ninka odayga ah ee dani ah ee soo diray wiilka hadlay qodobna kuumadaan leeyahay waxaan leeyahay daraawishta waxaan leeyahay sayidka gabay tiriyeyo hadda koor wuxuu yiri wax badan uu soo tiriyay markuu qabaa'ilada sheegayay hadal runa daraawishta iyo wali hanuuna leh hor ilaahay loo jeedsadiyo haajir culuma leh hoobaaq lagu qodahayo hagar shisheeyaa leh wuxuu yiri marka daraawishta ka yiri wuxuu yiri daraawishta wuxuu ka yiri hadal runa daraawishta iyo wali hanuuna leh gabay kale wuxuu ku yiri shirshoore ayuu amaanay sayidka maadaama ay yani halgankii kamid ahaayeen oo raggii ugu yani lafdhabarta u ahaa garab istaagay ilaahay diintiisa ma garanaysaa marka iyaga amaan bay naga mudan yihiin waa tolkeen waa walaalaheen way amaanan yihiin weligoodna waxay u soo taagnaanayaan soomaalinimada iyo islaamnimada ay u soo taagnaanayaan waanan ku amaanaynaa garabkoodana allah galo jazaahumullahu khayran ninkan jooga Garowe waa mar labaad ama waa mar saddexaad inta dad la dhoofiyo la maaragtay saasoo kaleeto Ethiopia loo dhiibayo ama xaran loo dhiibayo war waa walaalka war waa kabla laxdaarood hadii uu adiga wax ka galay maxkamad saaro dambi ku cadayso wax ku xukun laakiin inaad gaal u dhiibto hadda ka horna gaalada ayaa dadka loo dhiibi jiray oo wuxuu yiri muxuu sayid maxamed war ninka gaalka la siiyay oo talyan loo garbaduubay gacal maanu lahayn buu yiri maxaa ku dhacay nin cidda u dhashay ayaa saa lagu sameeyay ma garanaysaa oo gaalada loo dhiibay nin carab oo gabiyay yaa wuxuu yiri wa inna safaha ash-shaykh la hulma ba'dahu wa inna al-fata ba'da as-safahati yahlumi ninka dhalinyarada ah nin odaya oo safiihnimo ku hadlay sida ninka hadda hadlay ama ninka soo dirayba waxa weeye wax aqli ah oo ka dambeeyo oo laga sugayo male wa innal fata ba'da safahati yahlumi laakiin ninka dhalinyarada ah oo yar intuu laan ka boodo tala ka booda markuu weynaado inuu ka soo reeyaa la arkaa waxa kale oo leenahay tolkan now wax aanan idin quurin hanoo quurina haddaad noo quurtaanna hanala yaabina wixii ka yimaada oo meesha ka dhasha hanala yaabina wuxuu yiri nin kale oo caraba banu tamimin ala fanhu safihakum reeb bani tamimow ninkiina safiha cishta oo reebta gacmaha qabta inna as-safiha idha lam yunha ma'murun ninka safiha oo wax qasaayo oo wax ku dheelaayo hadii aan gacanta la qabanin macnaheedu waxa weeyaan waa la soo diray inuu wax qasaana loogu talagalay marka insha Allah ta'ala ninna waa ku aadaynaa boqol ninna waa ku aadaynaa kun ninna waa ku aadaynaa waana xisaabtamaynaa insha Allah ta'ala intaad na yeeshaana in lamid ah yaan idin yeelaynaa haddaanan idin kaga badinin insha Allah ta'ala haddii kale tol baa la yahay walaal baa la yahay waxa la isu yahay baa ka weyn يعني يان لحارونين walaalka waa ceeb way lama yiraahdo war gabadha qabto way quruxsan tahay kuguma haboone ana guursanay aniga iiga tag waa ceeb way walaalka sida lama yiraahdo haduu ninka ilaahay nasiibkiisa ka dhigay rasuul wasaare haduu noqday oo uu maanta noqday yani in la yiraahdo waa maaragtay waa anaga naga dhalatay tartiib insha Allah ta'ala isku kaanadu laakiin qofka hadii la caayo la ra'yi liman la yutaa qofka hadii la caayo oo la aflagaadeeyo oo la ixtiraami waayo hadhow lama qabsan karo oo qaab loola xisaabtamo male barkay waabad ka soo horjeedayba ma garanaysaa marka insha Allah madaxda aan adeecno ahlu diinka aan karaamayno
نينك إلهي مدح كدي إلهي بعدك مدح كدي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء لبا نين با اسقبتا ليري هدا كهور marka nin diintu yaqaanay oo malaha reerahan uu ahaa ninna wuxuu ahaa Soomaalidan kale uu ahaa marka ninkan wuxuu yaqaanay diintu yaqaanay iyo af Carabiga Quraan buu akhriyaa nin baa ka dacwooday wuxuu waryaa war wiilkiinaan maalin walba Quraanka nagu caayahayo maad naga cishataan Quraanka nagu caayahayo ma Quraan baa la isku caayaa Quraan buu ninkii daliishanaya Quraan buu sheegaya markaas wuxuu yiri caaybu u maleeyay Quraan buu nagu caayni uu yiri ninkan marka Quraan leedin kuma caaynayo muxuu ahaa walaalaan nahay إن شاء الله تعالى إسلام لماذا ولا